wafdi ballaaran oo ay hogaaminayso wasiirka wasaaradda maaliyadda oo ay weheliyeen wasiirka wasaaradda caafimaadka agaasimaha guud ee madaxtooyada barasaabada gobolada Awdal iyo Gabiley maayarka magaalada Gabiley iyo guddiga heer qaran iyo heer gobol ayaa maanta kormeer indhaindhayna waxa ay ku soo mareen deegaanada ay ku soo barakaceen dadkii ay abaaruhu halakeeyeen ee ka soo qaxay deegaanadaasi bariga deegaanada ay kormeerka ku soo mareen waxa ka mid ah magaalada Banka Wajaale degmada Geedbalaad Waalid Xoor ilaa iyo Taysa wasiirka wasaaradda maaliyadda oo warbixin ka dhageysatay dadkii abaaruhu ay soo halakeeyeen ayaa waxa hadaladoodii kamid ah dadka kale waxay ka soo guureen balgubadle maxaa dhacday salaxley maxaa dhacday saaxil goboladan kale ka sokeeya ama waqooyi ka xiga ama hawda ka xigaade ayay ka soo guureen kadib markii aan halkan nimi dadka boqol halka ugu baaxada badan leh horta dadku yimaado waa barta marka laga soo bilaabo ilaa Wajaale ilaa magaalada koonaheeda ilaa dibadda oo qoys baa soo degay ilaa 6 qoys soo degay 2 mala Itoobiya galay 4 kuna kala kala sugay dadkan deegaankan meesha ugu nimi waxa weeye dad wanaagsan oo aad iyo aad loo soo dhaweeyay oo alxamdulillah maada ka gaadhay wixii aan ugu nimi haday biyo tahay iyo haday baad tahay iyo haday wax raashin tahay waxa laala waxay naga hakargadeen ma jiraan qoysku markuu sidaa soo dago xirada waa loo oday waxa la weydiinay qoysku inuu haysto wuxuu karsado la soo guuray halkay naga gaarsiiyeen ilaahi waynu baryeynaa ilaahu adiga gacantaad weyntii gacantaad ilaahu hawayeen qofka bini aadamay wax idii keenana horta ilaahi baa u soo dhiibay ilaahi wuxuu noo keenay baynu halka ku sugaynaa waxaanu ogyahay xaaladdu waxa weeyaan imika meel Soomaaliland oo fayoobi ma jirto runtii abaartu meel wuxuu gaadhay weydinka ka sheekaynaya dadkii aad ugu timaadeen sidii idin soo dhaweeyeen ee wixii ay haysteen ay aad ula wadaagteen runtii abaarta waxa loo bixiyay walaaleeya waxay walaalaysay ummadii reer Soomaaliland isku damqadeen isku naxariisteen waa la iskaashaday waa la iscaawiyay waxaynu saaseen ku shaqaynaynaa ilaahayna saas horta inoogu naxariisanaya runtii ma aha xaalad siyaasadeed waa xaalad bini'aadan weeye xukuumadda jamhuuriyadda Soomaaliland runtii mar walba waa heegan bay ugu jirtaa waxaana caddeynayay ku filan maanta wasiir maaliyadda iyo guddiga heer qaran abaaruhu ay meesha marayaan oo ku shaqaynaya siyaasadda xukuumadda jamhuuriyadda Soomaaliland anagu haddaan nahay guddiga abaaraha heer qaran wasiirkuna ka mid tahay waxaanu idinku nimid maanta inaanu duruuftii waxaan dhowr iyo 10 cisho ka hor baan idin nimid xaaladda sida way ka duwanay inaan maanta xaaladda aragno wixii la intari karo hadday hugi aad dhaxanta kaga banaysay tahay hadday raashinkii tahay hadday biyo tahay hadday daawo tahay tudad iyo xoolaba wixii la idin soo gaari kara la idin la soo gaaro وعبد الله ظاهر تلفزيون كعالمي وبري TV magaalada Gabiley